بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba joogto salaamaya waxa waaye horta mar walba waxa isdhahaa barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talentigaaga waxa waaye fan iyo hees oo inta ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaa kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ay arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadadid dad ay ka soo roowdaa jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga maayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoon aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxeenin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen wax soo meelay jiro kulay dawlad iyo wax isfahansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u meelay jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleeyay mana maleynaayo dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah waa magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-ka hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlayo horta aniga cid aan ka baqayo oo Ilaahay ma jirto maxaa waa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta u soo galay YouTube oo aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa aba social media tahay maxaa la waa ka baqaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hayo oo walaalkayga deeq darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad aaminna aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay deeq darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacanta ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa ku tatay waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyay heer oo i gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa way qof aaminay aan nafteeda aan ku aaminay waxa wixii uu ii soo diri jiray wax walbo ii sameeyay jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan u galo ama gacan bil aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha Allah waxaan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhax joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikir ka dhaay qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas igu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa igu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna oga because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo igu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan oo ka hadlay waxyaabahaas oo ka hadlay waan ka aamusay ilaa Muqdisho imaaday waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaa ka eri wuxuu yiri show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saare wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaheenin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabar maskiin ah waxay ugu tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waay wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxa la itaha Axmed Rasiid aan dhahay waxaa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay بس نيكي مركا ويري لايف سوق الوي بري فاد وابري نيكي ومركا بري وحاواي وحل ايش نيكي صاحبكي ان لا سي دايو يقدر يجبر كل سي دايو وحو ير صاحبك صوتك ميشاس وحاواي امو جيميلكي نيكي غعنتي سو غله انت ما ku ere waxa deeqdar joog ka soo tagay ilaahay deeqdar joog familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garowe ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeqdar joog ku qayaani waxyaabo noocaas ka hadlaya marka hadda waxay taagantaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waay ninkii maxaa la yiraahdaa hadda YouTube-kii baasweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedina ay ugu jiraan waxa waay maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay ee Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay ee qofna ma bari jirin xaniyay igu jiray oo Soomaali isku barin wali igu jira waxa waay daciif waay nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeerta wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii ana ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa wada u diray waxa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka message ani ninkaas aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ahaysiinay YouTube-kayga xaniyay marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid anoo deeq isla joogna deeq telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Axmed Rasiid Allah ka hadlay oo Axmed Rasiidka telefoonka ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxiib adaanikaas ninka la yiraahdo Axmed Rasiid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaanika saas waxa la yiraahdaa iiga hiilay waxaan iga ma qaadi lahayn YouTube cusub aan aniga hadda sameystay YouTube-kaasna waxa waay uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku iray asoo siraftiisa dhooraayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed siraftiisa uga baqaayo Axmed Rasiid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo gala qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas inaa YouTube-ka kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimada soo fariisa waxay tahay waan inuu tusaya baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaawinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin oo naga soo maraya ma fahanteen Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaayo ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay ma lahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caagjuglaya qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekada weeb aamustee muxuu sharmi iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wuxuu uga soo hadlaya dadku kala feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa intaa loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaha waa intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena loo ogyahay horumar ku sameynayno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxa idin sheegay aan qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilantana waxa ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aatus waxaa waa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusan oo koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leey Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinaya xanaaqi iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu marayo ninkaan uusan naga daba harin cagta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aadamco waxa ay soo hor istaagayo أحمد رشيد waxay soo hor istaagay Axmed Rashid ninka noogiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay uga baqaysa ma aqaane dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa uu yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yeesay deeq darajo وكذب التجي وحبوه نقاد بأسيج المها حقه قوته أسيج واحد بسبيه حنيه ما أقول ماشى سجودرا تلا وحقوقي لا أفار قبيل كمرك قف وهي اللي سوا قبيل كمرك لوجو خلدمه قف قبيل لوجو هي لكننا أنا قبيل لهن قبيل وحقوقين لكن ما أنا لهن صومال ما أنا كجرين أو واحد أنا ترين أفكار أنفاق هايو أو إسكودرا قبيل وهي النسان وحواي وحلو دن قذا قفك قبيل وحكي قانون قبيل وصبح أقولين نرجع وصبح أقولين هير وصبح أقولين وحواي اللي يرد الصومالية وصبح أقولين نكاس نوجبي أو اللي يرد أحمد رشيد عنده نوجلي وحاول هذا مجبن أو معناها إن وحلوينا عن العشرة ما يوتيوب كيجي إن معناها قعنته وكويسته أما ولي الحكم يوتيوب كيجي أنا قعنته كويسته حتى تقدر يجاد قعنتكم معايا أكون تيجي أنا قعنته كويسته يوتيوب كيجي أنا قعنته كويسته حاول أنا قعنته كويسته لكن ولي عقد جوجلين يضط كي تقدر يجي إلا حتى وحاول وكسرت تجنولوجيسي وهي أسعد هرمركيسي ماشي جوج وكسرت تجي وحاول حياة كاجل أيضا الصدق كله تجمعنا وكسرت تجي وحاول حمر يكسر أنت هاي وقصة ضبطة جو وحاول ضبطه وحضر وخبطه wuxuu dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hada magacyadooda inta ka soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo fiidiyoyo oo ku saastay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxa waay ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxaa waaye anigu inta hadalkaas wax usoo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxaa waaye oo raaligelinta aan dhaweyda bixiyey ama baryada aan baryahay ma ahaan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolad madaxa looga haaya xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku yaray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kale oo ii furneed ma lahan wada kale oo sameeya in ninkaas inta waco aan baryo oo video soo duubi dhaho aan video u soo duubo wada ahayn ma lahan markii tii ay dhacday isla subaxii qadara ay qabsatay oo xabsiga gale oo taasiya ay gashay ninkii ilaa hadda uu dib taagay alaa kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagta oo noogu saaran yahay oo na dabahaayo waxa waaye anigana ma aan shaqsi u dabahaayo waxa waaye ninka deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa la yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku isdhaana laga yaabo dadku maxaa la yiraahdaa familiadood ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa loo ogaayo meesha ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil uu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegta aniga hadda qolada raba sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan uga dhashay laakiin qaasatan ma jeerteena ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim ma ahan qabyaalada qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoo looga dacwoodo ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya aan qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa uu sheegayaa Soomaali Maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaas ahayd waan in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii aan hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal iga tagaayo Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan in salaamaya goodbye